marka xigta aan sameyno sida labaad ama qaabka labaad looga hortagi karo waxaan la dhaho duplicateska. qaybtan dhan aan doorano, haddii kale adoona dooranin waxaad dhihi kartaa Control L ama waxaad dhihi kartaa format as a table. mid kamid ah tabeladan iska isticmaalno. let me use kan balaaga ah. wuxuu soo qabanayaa rangiga datadaada ay ka kooban tahay ama inta ay ku fadhida datadaada. wuxuu ku leeyahay my table has headers. checkboxkaas marka qaar waxaa laga yaabaa inuuna soo qaban. adi marka dooro waxaad dhahdaa datadayda headers ay leedahay, checkboxka saar. okay, markaan ana table oo excel asaga leeyahay noo geliyay. table excel markuu inoo geliyay qaybta ugu koreysa fiiri waxaa lagu soo daray waxa la dhaho table tools. table tools kan haddaan inta ku dhufto banaanka uga baxo ma arkaysid, laakiin haddaan gudaha ku dhufto wuu soo noqonaya. table tools kan faa'iidada uu leeyahay waxaa kamid ah horta meeshan table name u baxsanaysaa HR form dheh. sababta uu diiday maxaa waaye the syntax of this name isn't correct. sababta maxaa waaye HR underscore form uu rabaa inaad dhahdid, waayo wuxuu diidan yahay inaad table nameka space u dhexaysiiso. marka meeshan hadda dib ugu noqdo HR underscore form dheh haduu qaadanaya. okay, haddaad rabtid pivot table, pivot tableska gadaalaan ka baran doonaa. aad bay analysis kugu wanaagsan yihiin. waxaan u baahanahay laakiin anaga waxaa waaye remove duplicates waxa la dhaho. remove duplicates hadda marka aan ku dhufto wuxuu keenayaa boxkan oo asagana ii keenayaa. boxkan haddaan yara ballaariyo datadaada hadday headers leedahay magacyadii header kusoo qabana full name, gender, age, grade, position, contract type, location, mobile. marka intaan dhan marka ay doorantahay micnaheedu waxaa waaye kulli intaan wixii iskaga mid ah remove. xitaa soo qaba maahan oo conditional formatting soo qaba, waa remove garay. 1 2 3 4 5 datadeen intaan waxaas kaga mid ah inay jiraan ma umaleynaya, laakiin aan fiirin inay jiraan. okay, no duplicates values found. wax hadda oo isku mid ah rows isku mid ah ma la helin. mid kamid ah abuureyna marka aan isku mid ka dhigayna. meeshaan magaca hore oo Faadimo Cabdullaahi Faarax koobiyey inta keen. marka meeshaan da'dan 25 waa qofkan ka dhig female kan soo koobiyey asna waxa dhan inay iskaga mid ka noqdaan waaye. intaan hadda iskaga mid ay ka yihiin. okay, hadda remove duplicates dheh waa inay wax baxaan. one duplicate values found and removed. soo ma aragtid hal labadii markay isku midka ahaa mid buu ka soo reebay, waayo automatically wuxuu aaminsan yahay systemku marka ay isticmaalayso excel tables labadan row ee isku midka ah waaba isku mid ah mid un reeb. so laakiin marka qaar dhinacaan ka mari karnaa. hadda remove duplicates kan aan sameyno full name kan haddaan ka bixino iyo age ka kulli inta kala dad iskaga mid in la helaa laga yaabaa. okay dheh laba kala duplicate ahaa la helay. marka inta badan ha isticmaalin kan. marka aa hubtid 100% in ay jiraan daatooyin rooyo isku wada mid ah markaas isticmaal remove duplicates. haddii kale ha isticmaalin. conditional formatting waan baranay iyo remove duplicates anagoo excel isticmaaleyna.